صل على الحبيب محمد وعلى الآل رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء رب صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء اللهم صل وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إله baa mahad iskale marka koowaad marka xigta waxaan rabaa inaan u mahad celiyo xildhibaanka federaalka xildhibaan Faa'iiso waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saraakiisha is soo xilqaantay ee noogu timid halkan inay dhibka iyo dheefta iyo moraalka nala qaybsato intaas kadib waxaan rabaa aniga inaan ku dheeraado ma rabo waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan ku jirnaa dagaalka aan ku jirnaa horta wuxuu yahay inaan isla ogaano waxaan ku jirnaa dagaal oo mabda ah waxaan ku jirnaa dagaal caqiida ah waxaan ku jirnaa dagaal diin ah waxa aan la dirirayna waa niman khawaarij ah nimankaas oo dilay amiirka mu'miniinta Ali ibn Abi Talib Uthman ibn Affan saxaabadii dilay annagana hadda jooga inay dhameeyaan dadka aan la dagaalamayno dadkaas waaye waxa aan ku dagaalamayna waa caqiido iyo mabda dagaalka labaad waxa waaye dagaal qabiiliya deegaankeenni iyo dadkeenni inaan gacanta ku haynin waxaan rabnaa nimankan la dirirayno waa niman taariikh ku leh islaamka waa niman dhibaato iyo baabi'in iyo inay soo joogeen mar walba waxaan rabaa sifaad kooban ay leeyihiin aanan ku dheeraahaynin aan wax yar ka sheego waxaa la yiraahdaa ayagu kitaabka iyo sunnada nabiga ka hadlaan yadcuuna ilaa kitaabillahi walaysu minhum fi shay dadka waxay ugu yeeraan kitaabka iyo sunnada ayagana waxba kama hayaan madiina ah boqolkii qofood oo hadda zooba ku dhimatay iyo 200 qofood diin miya baabi'inta maalin walba ah diin miya ayaga diinta sal iyo raad toona kuma laha maalin walbana diinay sheegtaan yuhsinuuna alqiila wa yusii'uuna alficla markay hadlayaan kitaabka iyo sunnada iyo war qurux badan ay ku hadlaan wa yusii'uuna alficla wa aragta ficilkooda sida uu xun yahay dhaqankooda sida uu xun yahay waxa la yiri salaadooda markay diinna xaqiraysiin iimaankoodana kalxamaha halkan ma dhaafo ragga aan la dirirayna raggaas waa ugu dambeyntii waa sharrul khalqi wal khaliiqa khalqiga waxa la yiraahdaa bani aadamka khaliiqadana waxa waaye waxyaabaha xasharaadka iyo nimankaas ay doofar waa ka dareen horta ina ogaatiin waa nimanka aan la dirirayna waa nimankaas nabigeena nabadgelyo naxariis dushiisa ahaatay wuxuu leeyahay duuba liman qatalahum aw qataluhu wax ugu dambeeyo waxa waaye dagaalka markaan galno markaan dhimanana ahlu janna nahay markaan dilana ahlu janna nahay mar walba war sifadaas ma qaadanaaho saaka ilaahay mugu dhawaanaa mase dibaan u laabanaa war saakay ma waxaan ogolaanaa gunnimo ma waxaan ogolaanaa baabi'in ma waxaan ogolaanaa dib u dhac mase waxaan aadnaa dagaalka iyo dhimashada iyo dhaawac intaasaan ogolaanaa intaas haddaan ogolnahay saakay dagaalka guulo waa ka gaarnay inta dhimanna waa noo dhimanta waxa ogaatiin tusaale Cali Jayte nin halgamay oo wax badan qabsaday Soomaa matabaano wuxuu joogay muddo bacdana dhowr mar u ka laabtay waxaana kalifaysa duruufaha iyo sababaha dagaalka kalifaysa annaga waxaan tagna Soomaa duruufo jira loo soo laabtay waa diyaar garoobayna dagaalkan u laabaheena waxaan rabaa inaan idinku koobo meeshan qabiil fadhiyo qabiilku waa soo xilqaamay 6 saac oo habeenimo meeshan dhaawac diyaarad ka saaray qof wax kale loo qabalahay ma jirto diyaaradan saaray diyaaradda waxaan saaran dhahay aniga jilbka ay xanuunay bis diyaaradan saarnay si aan dhahno soo nasabax aad xamar tag nin ku fayan qaadnay diyaaradan saarnay ninka dhaawac iska dhaf warsaaka wax idinka maqan ma jiro annaga ragga naga dhintane Shucayb iyo ragga kale walaalaheena iyo Cabdullaahi Konton iyo ragga naga dhintay raggaas shuhada way dhiigooda hadur ma annagoo dhana dhimayna been ma sheegayna laba arrin waa idin ballan qaadayna inaad dhimayna soo Ilaahay ma ballan qaadin meeshan ku dhimayna yaa yaqaan annaga
قف تقان ملها إلهي كليها يقان فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن ما أنت لمن إن برد من أنا شغلكم لهم إلهي أكتك الله ورجع دجال قلي أو كفاحي أو نول دجال ما لقول أنت بقول خفض دجال قش أديك الدجال سو قلي أنت رجع نودن رجع دجال سو قلي جدوا دجال لقومت أنت لقومت داو عمو قدرت إله لقول أنت لقومت داو عمو عبس الجلين تنمك أس خوارج تا يبان تو ما آمنا مثلا تن إلهي أن آمنا تن إلهي هدان آمنا إنه أنك عدو جينا مرك كود قفك مرك الدرتين وحلوية قانا عدو هذا مرك كود مرك كل رباح هذه على بعضها وإسسوا كبتها ومرك أديك وكل رباحة أدنى وار رباحها مركز الدحين عدو هذا وار رباحها أصاروا لك كلها أنك عدو جينا قيبت كود ونوب بالله بتي وار رباحنا وان رباح ما نودمن إن رباحنا نقول كل فنا نودمن وحلو سعدا قال هريري وحلو سعدا جعر وحلو سعدا عقعد وحلو سعدا دري هل كان ميكويالين سو نمن خوارج عدو كمان سكي نمن كاسدانا أنك قعنت صارين وأنا إسكدعين ماشي متيكرنا war ilaahay ka cabsada iska dhaafa dadkan waxa lagu yaqaanaa qabiilkan dagaal lagu yaqaanaa taariikh waaye gobolada dhexe ee meel walba joogan dagaal lagu yaqaanaa guul lagu yaqaanaa sababtan wax kale ma dadka ma dulmiyaan war anaga dulmi ma u soconnaa waxaan u soconnaa deegaankeenni waxa waa aragteen dhibaatada ka jirta Soomaa magaaladan Maxaas iyo magaalada Gurceel saddex jibaar ay dhanta MCH gabar ay ku umusho kuma yaalo isbitaal ee dugsi hoose dhaxana kuma yaalo dawladnimadana kama faa'iideysan dadkoodina lacaga laga qaadaa dadka islaamka waa ogeen xoolaha nisaab markay gaaraan zakada laga qaadaa xoolaha nisaab gaarina zakada laga qaadaa dadka shakhsiyadoona loo canshuuraa qabiilan u soo baxnay ciidamada dawladda qof aan dawlad ahayn qof shacaba intaas soo dagaal uma soo bixin soo qabiil ma nihin qabiilka inuu gumo ma soo baxna mas qabiilka sharaf iyo qiimo inuu yeesho war nimanka aan la direynaa niman khawaarij oo fulayaalo waaye waa la yaqaan dagaalkoodii dagaalka ma galnaa masaaka intaan ku dhaafnaa waa kala harnaa annaga war saakay wiil adinka ficina ma deegaankiina iyo dadkiina iyo walaaliin u dhaafayna ma soo galina dagaalka war saakay ma waxaan doorahaynaa inaan dhahno hebel asaas iyo hebel ay fiirshay iyo hebel muxuu yahay dooranaa saakay mase waxaan dooranaa cadow inaan wajahno intaas hadda ogoshihiin isku daya ku xiraashada ilaahay qof ilaahay ku xiran lagama guuleysto nimankaas ilaahay kuma xirra dhiiga oo xalaala niman zaalimiin oo mujrimiin waaye waa niman eeyaha naarta ah adinka ina iska dhicisiin adinka sharaf iyo qiimo leh oo qabiil oo dada dhaawacooda kama tagaan meedkooda ma duugaan war dadka sharaf ma leeyihiin war dhaawiciina sharaf leh oo meedkiina sharaf leh oo dadkiina sharaf leh ilma adeerayaal oo saakay gunnimo maan qaadanaa mase waxaan qaadanaa dhaawac iyo geeri iyo sharafan qaadanaa intaas haddaan qaadahayno saaka xildhibaanadii nala jooga soo xilqaamay xildhibaan Faaiisa joogto waxyaabaha naga maqan oo dawlad nooga maqan ee qabiil wax nooga maqan ayadan ka rabnaa soo ayada dhageysamayno saako dhan waa iska dacad hebel xagga tagay hebel xagga ku leexday hebel xagga warmiya saraakiish idin xukumayso waa idin dhex joogtaa Soomaa tali Ismaaciil idin dhex joogo Fatxiya joogo xaala joogo oo maanta dhan saas iska dawareega Nuur Foole soo ma arkina meeqa sano jira soo xiiray ma arkina soo Cabdullaahi Daahir ma arkina furunta ma ka harin mase furuntay joogeen annaga furunta ma ka harin mase furuntan joogno sababta wax kala ma ahayn waxay ahayd waxaan u soconan xaq inay yihiin inaanan meel ku kala harinay ahayd meel aan ku kala harna ma taqaanin war saaka maxaas annaga martiyaan ku nahay dad eelaha joogo ma waxaan dooranaa maxaas inaan joogno mase darri iyo wabxo iyo cagacad inaan tagnaan dooranaa intaas haddaan doorahayno waa inaan dagaalka ogolaannaa waa inaan annaga isdhiibnaa waa inaan safka hore tagnaa waa inaan iska dhaafnaa walaalka inaan dhahan hebel wax iga hadlay hebel wax iga hadlay daaw maahan waxaan isku ognahay dagaal waxaan isku ognahay midnimo waxaan isku ognahay isgarabsi Allah na guuleeyo nimanka dulmiga nagu haastana Allah naga jabiyo annagana aan dadaalno dhaawaceennana meel uu leeyahay dhimashadeena meel ay leedahay halkaana joogi mayno cadawgiyaan aadaynaa dagaalan aadaynaa diyaar ba u nahay guuleysta